Assalaamu calaykum. Daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta. Maanta barnaamijkeena waxaan u hadli doonaa qofkii ugu horeeyay oo u dhintay coronavirus oo Yurub laga xaqiijiyay. Ku soo dhawaada barnaamijkeena oo dhammaystiran. Dalxiise Shiinees ah ayaa Faransiiska ugu dhintay caabuqa coronavirus kaasi oo noqday qofkii ugu horeeyay oo cudurkan ugu geeriyoodo meel ka baxsan Aasiya. Dalxiisaha geeriyooday ayaa waxay da'diisu ahayd 80 sano jir oo ka yimaaday gobolka Hubei ee dalkaas Shiinaha, sida laga soo xigtay wasiirka caafimaadka Faransiiska Agnès Buzyn. Waxa uu dalkaasi Faransiiska soo gaaray 16 Janaayo waxaana lagu karantiilay isbitaal ku yaala magaalada Paris 25 isla Janaayo. 3 qof oo kaliya ayaa markii hore la sheegay in meel ka baxsan Shiinaha ay xanuunkaas ugu geeriyoodeen, waxayna dadkaas ku dhinteen Hong Kong, Philippines iyo weliba Japan. Si kastaba 1500 oo qof ayaa caabuqan gudaha Shiinaha ugu dhintay, kuwaas oo intooda badan ku noolaa gobolka Hubei oo ah meeshii ugu horeysay ee cudurka coronavirus ka dilaacay. Dhamaadkii bishii Janaayo, Faransiiska ayaa noqday dalkii ugu horeeyay oo Yurub ka tirsan oo laga xaqiijiyay kiisas caabuqan. 11 qof ayaa la xaqiijiyay, waxaana haatan weli isbitaal ku jira 6 qofood. Halkaas ha inoo joogto barnaamijkeena maanta oo aan uga hadlaynay qofkii ugu horeeyay oo u dhintay coronavirus oo Yurub laga xaqiijiyay.